xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya Danjire Cali Maxamed Cali ayaa soo gaadhay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar kadib casuumad rasmi ah oo ka helay dhigiisa dalka Qatar wuxuuna ka warbixiyay kulamadii uu la yeeshay mas'uuliyiinta dowladda Qatar iyo waxyaabaha uu kala hadlay. waxaan imid dhawaan halkan laba cishaan joogaa waxaanan imid anoo ka jawaabaya martiqaad uu ii fidiyey Dr. Ahmed Hassan Al-Hamadi xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar oo aan hore isugu soo aragnay xafladii cala masaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta ka dhacday November halka Nairobi runtii si fiican baa la ii soo dhaweeyay waxaan halka uga mahadcelinayaa dowladda Qatar sida ay ii soo dhaweeyeen waxaan kale u mahadcelinayaa sihayaha safaaradda Soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinta safaaradda sida halka la igu soo dhaweeyay waxaanad ka garan kartaa halka aan deganahay iyo sida la ii qaabilay waxaan shalay kula kulmay xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar xarunta wasaaradda arrimaha dibadda asaga iyo saraakiil kale oo la socotay isla markiina meeshaas ayaa wada hadal dheer oo dhinacyo badan taabanayaan kula yeeshay waxaan isla soo qaadnay iskaashiga iyo xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Qatar iyo Soomaaliya oo runtii ah mid xiriir wanaagsan oo walaalnimo oo iskaashi ku dhisan waxyaalo badan ay iska kaashadaan waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Qatar kaalmada bini'aadanimo ay siiso shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo gudbay hadda marxalad cusub xiriirkaas oo ah in ay dowladda Qatar taageerto mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda waxaa dhawaan magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis ay dowladda Qatar ku siinayso 200 milyan oo dollar mashaariic anigu markaan halka imid waxyaalo badan baan kala hadlay dowladda waxaan kala hadlay in labada wasaaradood iskaashi yeeshaan gaar ahaan tababarada iyo diblomaasiyiinta iyo capacity-ga wasaaradda kor loo qaado waxaan kaloo kala hadlay in ay Qatar ka qayb qaadato cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay waxaan kaloo kala hadlay in ay Qatar qayb libax ka qaadato sidii loo qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya arrimihi aan ka wada hadlayna wuxuu ahaa si miradhal ayaa kulanka u dhacay waxaan rajaynaynaa in uu sii socdo iskaashiga labada dal. Danjire Cali bin Cali oo ka hadlayay horumarka uu ku arkay dalka Qatar ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay dalkooda horumariyaan oo ay isku tashadaan runtiina waxaan aad uga helay horumarka halkan ka muuqda iyo sida nimankan ay dalkooda u dhisteen waxaana rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed tusaale u noqoto Qatar dowlad yar oo dhaqaale leh laakiin dadkoodu ay u soo jeesteen inuu dalkooda dhistaan. ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Liibiya kuwaasi oo dowladda Soomaaliya ay bilowday inay ku soo celiso dalkooda hooyo. waad arkaysaa shalay in laga sii daayay qalabka warbaahinta Danjire Cali Fiqi iyo Madam Marian Yaasin inay halka booqasho ku tageen dowladdu ihtimaam gaaray siinaysa madaxda u sareysa sidii ummadda halka ku dhibaataysan loo soo badbaadin lahaa Liibiya dhibaatooyin badan baa ka jira runtiina waxa jira qaybo aan dowladda maamulin oo dhibaatooyinka ay ka socdaan waana laga hadlay UN-ka waa looga hadlay in is-adoonsi baa meesha laga sheegay tacadiyaad fara badan baa ka dhacay laakiin guud ahaan waxaan qabaa in ay dhalinyarada Soomaaliyeed dalkooda oo hadda ka soo kabanaya dhibaatada horumarna gaari doona inay dalkooda iimaansadaan oo iska dhaafaan tahriibta oo dhib badan ka haysta qoysas badan ay dadkoodii jeclaayeen ku waayeen ma fiicna tahriibtu anigu waxaan qabaa in ay tahay wacyigelin badan in loo baahan yahay SNTV iyo qalabka warbaahinta kalena ay ka qayb qaataan. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish warbaahinta qaranka magaalada Dooxa.